السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال دمان تين ميكس الدنيا كجوجتان دوينها كحرن برنامج كدحراب يفاقداد kala duwan ciyaaraha dalkii dibadda aad baan idin soo dhaweynaa barnaamijka maanta ayaa martiigo waxa martiigo shakhsi aad si fiican u taqaanaan waxa weeyaan waa taariikhi weynaa waa Mubarak Bukaase Mubarak aad baan ku soo dhaweynayaa maxamed aad baad u mahadsan tahay barnaamijka dhaxalreeb iyo True Cable boo ku dhawahay aad baan kaaga mahad celinayaa martiqaadka maxamed cabdilaahi cawad ciyaartoy hore iminkana wariyaasha sportska barnaamijka dhaxalreeb okay waa aad baad mahadsantahay kulay dadku sports badan kaaga ma baahna oo way ku wada garanayaan laakiin bal in yar oo guud hadaad runtii Mubarak ma horta ma hargeysadii damba mise waa hargeysadii hore ciyaarkii hargeysa ku dhashay bismillaahir rahmaanir rahiim Mubarak maxamed cabdi way magacayga horta dhameystiran magaalada hargeysa ayaan wax ku bartay oo dugsi hoose dugsi sare iyo jaamacad ba kaga baxay hargeysadii hore noqonaysa markaa waxaan deganaa xaafadda Xawaadle 26 Juun waxbarashadeedii hoose iyo dhexe iyo dugsiga sare iyo jaamacadda waxaan ku qaatay magaalada Hargeysa dad badan oo aan soo gaaray way jirtaa oo waqtigii hore iyo dad waqtigii dambe iyo kuwan hadda casriga ee technology-ga la jaan qaadayba marka maxamed oo anigu waxaan isku tilmaamo garan maayo aad Mubarak bantaan barnaamijka iyo taaliiq oo runtii aad ku caanbaxday u gelin bal kubadda cagta halkeed ka soo gashay markii ku horeysay horta markii igu horeysay si fiican baan u xasuustaa waxaan ka soo bilaabay kubadda cagta kooxihii magaalada Hargeysa markaa waliba waxaan haysanay deegaan lagu ciyaari karo garoonkii Xawaadle taasan ka soo bilaabay markaa koox waxaan ka soo bilaabay Rirsi Hospital ku ciyaari jirtay isbitaalkii الله ونحرسه دكتور أحمد عبدي شغله oo magaalada Hargeysa ku yaala ama radio Hargeysa ka soo horjeeday kooxdaasan ka soo bilaabay Rirsi ka bacdi waxaan ka mid noqday kooxihii heerka labaad oo garoonka Xawaadle ku ciyaari jiray kadibna kooxdii 17 May ama 17 May ayaan ku biiray 2011 markaa jaamacad aan galay oo ka baxay saaxadii markaa ciyaaraha way Mubarak haddaan iyadana in kayra weydiiyo waqtiyada aad ciyaari jirtay yareeda garoomada ku ciyaari jirtay kulliga Hargeysa fanko kaliya hooy ma laakiin waa hooy kubadda cagta Soomaaliland way tahay legends fara badan kubadda cagta caalamka ka soo maray waqtiyada aad u ciyaari jirtay kooxii waqtiga runtii ugu shidnaa magaalada Hargeysa ee daawan jirtay iyo ciyaartooyga saameynta lahaa iyo ciyaartooyga aad gaar aad u jeclay inaad daawato maalinta uu ciyaarayo garoonka jacayl jirtay halka hore ka fadhido horta waqtiga ciyaarihii aan daawan jiray ama ladadkii naga horeeyay horta midfield baan haanu khadka dhaxanha waxaan horta aan aad u jeclaa inaan daawado laba nin baan horta aad u jeclaa imanka mid magaalada Hargeysa jooga oo Amin TV baa la nin aad u laag dheer buu ahaa kooxdii Liibaan buu ciyaari jiray waxa kale oo anigu aad u taageer jiray nin la oran jiray Liibaan oo Liibaan Tooti oo kooxdii ciidanka qaranka ka tirsanaa oo nin 5 kana ka ciyaari jiray kubaddana khadka dhaxana gali jiray laagiisuna fiicnaa labada nin horta aan aad u daawan jiray dhanka kooxaha haday noqotona kooxihii waqtigaan soo gaaray waxa kamid ah kooxdii Whitesun Village iyo kooxdii Hargeysa Springwater iyo kooxdii Nuuruddin oo ahaa kooxii markaa ugu cadcada magaalada Hargeysa adiga dhamaan kooxaha waan salaameynaa laba Liibaan aad baan u salaameynaa Liibaan Tifo iyo Liibaan Maxamed Nuux Liibaan Tooti labadaba laba laacib oo runtii qaali ah Mubarak inta kaga nimaadno taariikhda hore xilmad ogaatay Mubarak mihnadan taariikha inaad ku fiican tahay xilmad ogaatay adigu intaan dadka kale ku ogaan وسؤال fiican horta waxaan anigu aan jeclaa horta wariyanimada waan jeclaa inaan wax soo gudbiyo waxaan ogaaday 2018 bilowgiisii ayaan tijaabo sameeyay oo cod narration ku sameeyay
kabacdi markaan anigu si gaara u ogaaday aan xiiseynayay inaan sameeyo oo inay iga ahayn marka inaan tacliiq sameeyo iga tahay inaan si wariyanimo usoo gudbiyo xidharka ciyaaraha ama qodobada ciyaaraha ayaan tan isku dayay 2018 kabacdi 2018 bishii 6 baan arkay home cable TV oo laga xayeysiinayo loo baahayay dadka noocaasa kabacdi waan tagay inama ciyaartoyo oo sireedeena hadda ku jira ayaa markaa fursadan ii soo sheegay in qoladaas sida ay u baahan tahay markaasaan helay in xirfadan la sameyn karo tababarna aan u helay qalabkii wixii lagu isticmaalayay aan u helay waayahay ciyaartii kuugu horeysay aad mikrofoonka tacliiq u qabsatay ee runtii aad tabiso ciyaartabahayd labada kooxood si ciyaarayay ciyaartii ugu horeysay 2018 waxay ahayd koox Sooyaal magaca Sooyaal ku ciyaarisay oo heerka saddexaad ku diiwaan gashanayd iyo koox kale oo ku diiwaan gashanayd Buubal baan filayaa oo markaa labadii hadayna mudaakiradeedu ay khiyaameen waqtigaas oo la qabtay koob 32 kooxood oo FA xiriirkii ka horeeyay uu qabtay markaa 2018 aadiya iyadoo waxa jeclaan ku weydiiyo maadaama ciyaaro badan la hadda qabatay oo tacliiq kala duwan qabatay dadweynuhu aad u jecel yihiin codkaaga xiiseeyaan bal ciyaarta xasuusan kartaa oo karto ciyaartii ugu xamaasada badnayd ee aad isleedahay wad soo tabisay tuma ahayd kooxeebaha labada kooxood ciyaarayay maxaana ciyaarta si khaas ah u leedahay ciyaartii ugu fiican ugu xamaasada badnayd baa ahayd wallahi maxamed aad ba maasantay laba ciyaarood baan anigu waanan iloobin anigoon xataa u sameeyeen si gaar ah laakiin labada ciyaarood aniga waxay ilaahayd wax aad u culus because wuu murugooda ciyaartooygu marka laga badiyo badinta kala duwan waliba marka laga badiyo 90 iyo abaf ama 90 iyo dheeraad marka laga badiyo ciyaartooygu wuu murugooda culays baa yimaada waxay ahayd kooxda gaashaan iyo kooxda duulista wada ciyaaray waxay ku wada ciyaareen Hargeysa Stadium koobkii Sonya Cup gaashaan waxa ka dhaliyay gool haye baashi waqti dambe 91 daqiiqo ku beegnayd ama 92 daqiiqo tarabuunkuna uu dareeray xataa studio-ga aan ciyaarta ka dhex tabino waxa dadka fadhiyay la fadhiyay shaqada ku jira ay soo sheegeen marka in hal daqiiqo wax ka yar bay dhiman tahay oo lagu kala dareeriyo narration-kana aan marka u bedelnayn ciyaartu dhamaad tahay dadkana aanu sii sagootino tiina may dhicin kubad uu laagay haddaan khaldanayn Cabdixakiim oo Aristo difaaca ka ciyaariyo xanaaqadahayd buu baashana dhaliyay madax sidii bay ciyaartii ku noqotay barbardhac gool kulaadkiina baashi oo goolada uu qabtay uuna dhaliyay maalintaas aniga waxay igu ahayd culays weyn dadkii daawanaya dareere qaar baa soo noqday oo ciyaartii dib u daawaday oo kamaradii waa la hayaa dadkii sii dareeraya ciyaartii xigtay isla Hargeysa Stadium bay ka dhacday dawladda hoose iyo Goodir bay ahayd waxa dhacday maalintaas 2018 bay ahayd waxay ahayd aniguna waan ku cusbaa wariyanimadan ciyaaraha waxay ciyaar dadku soo buux dhaafiyeen roob baa daay idamka rabbi waxa dhacday in kamaradihii xataa inamadii duubay ciyaarta inaan laga bixin oo shaararkoodii ama waxyaabihii kale roobka lagaga dadi karayay ay kaga dadeen si ciyaartu u socoto waxaan xusi karaa maalinta agaasimiye waqtiga telefishinka on cable Maxamed Cabdi Sheekh in uu ku amray in live laga bixin isagoo garoonka ku sugan 3-2 ku dhamaatay waxa dhacday kooxda booliskood moodooyin ay awood sareysay qaybtii dambe ciyaarta in laga helay laba fursadood kadibna ay 3-2 ku soo dhamaatay ilaa imkana ma iloobo ciyaar adag bahayd Maxamuud Cabdi Xasan ku xusgana goofinde aadiya waa farus conna su'aalaha runtii xogaa aan jacayna boobsino waqtigan ka faa'iideysano waxaan jecelahay in ku weydiiyo oo xusno ciyaartoy fara badan baa Hargeysa Stadium togdheer alamsay koobkii championka meelo badan baa tagtay ciyaaryahanka ugu jeceshahay kubadda cagta mar ku hayo magaciisa aad jeceshay
aad ku raaxaystay magaciisa ku celisaan kubadda u daadahaysanaya waa kuma horta aad baad u mahadsantay dhammaan ciyaartooyga waan wada jeclahay maadaama aan isku xirfadnahay waana wada salaamaya maanta oo kale dhammaantood anoo ka faa'iidaysanaya barnaamijka dhaxal reeb laakiin marka kubad haysasho ay noqoto ama xirfad ay noqoto ciyaartooyga ku xidhantay dhammaantood xuquuq isku mid aan siiyaa se waxaan anigu aad ilaa imka ula yaabanay nin ciyaaraha kusoo biiray waktiyadan dambena xoog ay dadku jecel yihiin biliiska u ciyaara cabdilwaduud waxa weeye haddii uu fursad hela ninkaasi xataa haba noqoto fursad 18 ka baxsan ha noqoto goobtan laga dhaliyo ka baxsan sidoo ula soo socdo wuxuu la imanaya goolka ama goobtii loo baahnaa waa haddii se uu fursad helo haddii aanu helin waxa laga yaabaa in ama takal lagu sameeyo ama laga qaato ama ay baxdo ninkaas aad baan anigu waan ilaa hadda aan farsamadiisa iyo sidii cajiibka iyo janiska uu helayo aad iyo aad waana ninka daruntii magaca taariikhda galay ee Formula 1 aad ula baxday okay waxaan ku weydiinay kale bugaas waxaan jeclaan ku weydiiyo تعليق بات هاي عيارين كبدا عيارة عيارتوغا عالم كداوضا عيارتوغا قاربو جعلينو إنو حرفديس كبدل كدايدو ومعناه بقرايو أما ستو يسوي عيارة أنا تعليق بات هاي من تبيع عيارها دتك عيارات تبيع لغة لا بلو تبيع لكن دتك أنت بدل أي مات هو ده من عربي ده عرب ده أنا ردي وتكون في عند سنة أركي تعليق عرب تمك الناديين هذا أدو تعيشها أدو قامت تعيشها إن هل كيس كله ويسو وكما maxamedow horta aad baad u mahadsan tahay horta waxaa jira super sportigana waad la socotaa qolada ingiriiska iyaguna si fiican bay u sameeyaan intaana ka bixin su-aashaadana waxaa jirta carabiga tacliiqyo badan baa jira laakiin hal nin baan waxaan ka keenay fursadan ah in qofka backgroundkiisa iyo in kuwii hore la midka ahaa isaga iyo in kooxdan kuwii la midka ahaa laga keeno عسام شوالي wuxuu fiican yahay inuu keeno shaygan meesha ka dhacay ama ciyaarta ka dhacay mid la mid oo hore u dhacay ama taariikhdii tagtay ah dabeedna uu isku xidho narrationkaas dabeedna qofka daawanaya uu ogaan karo maadaama inaga imka technology-ga aynu imika ina soo gaadhay almost 3 sano 4 sano aynu isticmaalayna in live loo galo ciyaartooyga kuwii aan haysan adiga waqtigaagii oo kale waxa jira way nool yihiin jiilkaagii laakiin dadka hadda inayna technology-ga kugu aqoonsan baa laga yaabaa way waqtigaagii may jirin in laga soo warramo maxamed cabdilaahi cawad oo ka ciyaaray berbera oo garoonka ka ciyaaray bursade oo sidaa u ciyaari jiray isagu wuxuu sameeyay ninkaasi markuu ka warramayo taariikhdii ciyaartan iyo kuwii hore ayuu isku lifaaqaa kadibna qofkii wuxuu meesha ka qaataa xog sugan oo ciyaarta dhexdeeda ama wixii aanu hore u ogeyn buu ka helaa markaanu Cusam Shuwali aad u dhageystaa qolyaha super sportigana nin khatar ah isaguna si fiican uga la socdaa oo waqti u helin inta badan laakiin waxa fiican markasta aniga taageeradaydu Cusam Shuwali aad waxa kale inaan ku jecel waan ku weydiiyo runtii kubadda cagta marka tabinaysa la daawanayo saasna isugu soo xidhaa inta badan kooxaha ciyaaraya taariikhdooda hore ciyaartooy qaar garoonka Hargeysa stadium soo kale Cabdalla stadium Alamsi stadium waxa soo qaadataa ama Xaaji Daahir stadium kale ciyaartooy ka ciyaarta soo qaadataa okay waxa jirta kelmadaha runtii adigu caan ku tahay kelmadaha mid soo qaata waxa kamid ah إذا سفرت حمرت أو هذي هروت ماذا عسانا وحجة كلمة سوما مايدن مبارك بكاسا مسوي حوالي رنتي وكلمة كم قشين ما كانت تعليقين تواوين عربي horta waxaan halkan uga mahadnaqayaa Ibrahim Shiine oo ka tirsan telefishinka Home Cable warbaahinta in badan ku soo jiray erebixinta qaar buu iska lahaa oo isagu uu keenay anna narrationkii baan geliyay oo halkii looga baahnaa baan geliyay wax hirgalana way noqotay meelo aynu ku liidanana bilaadan bayna way jirtaa oo u baahan in erebixinteedii la keeno kadibna aynu ku tijaabino ciyaaraha dhacaya ama aynu ku soo sameeyno studio-yada dhexdeeda si aynu u sii xoojino erebixinteena ay isku yeeshaan marka ida sfarrat ahmarat horta asfar iyo ahmar waa casaan iyo huruud bay kala yihiin luqadda carabiga af Soomaaligana waxa weeye casaan iyo huruud bay ku yihiin marka
digniinta koowaad iyo digniinta labaadba ayaa laysiiyey erey bixina. Marka digniinta koowaad waa huruud, digniinta labaadna waxa weeye casaankii oo meesha looga baxayo. Marka waxaan sameeyey si qofka daawanaya ee weliba waqtigan casriga fahmaya ama waxbartay ama la socda technology-gan erey uu ku fahmi karo anigii isagii naga dhaxaysa. Waayo anigu daawadihii baan la shaqaynaya, ciyaartooyguna daawadihii buu la shaqaynaya. Marka kelmaddan sidaasaan ku keenay, kadibna erey bixintii waan ku sameeyey ahayd in iminkaan raaciya waqtigan dambe digniinta koowaad buu qaatay hebel hebel, digniinta labaad markuu qaatana markaan raaciya intan haddii ay huruudu timaado casaan ba xigi doono. aad iyo aad muwaadiniinta waxaan imanaa bartartanada waxaa waddanka hadda ka qarsooma waa tartanka horyaalada dalka la yidhaahdo ee gobol walba ka qarsooma. sidoo kale tartanka ciyaaraha gobolada jira waxaa kaloo jeegana oo hadda markii ugu horeysay la qabtay garoonkaas Cabdulla Istaan magaalada Berbera sanadkan lagu qabtay championska waxa loo yaqaano. saddexda tartan ba adigu waa la soo shaqeysay waa la socotaa. marka barbar saddexda tartanka isleedahay wuu ugu xiiso badan yahay guud ahaan dalka marka eegto waa tartankee. Maxamed Cabdilaahi aad baan ku norto saaxiib mar kale ku salaamayo su'aal fiican baad weydiisay inkastoo munaasib ku ahayd qof taageero ah oo taageero weyn naga awood badan qoladeena wariyaasha iyo qolada ciyaartooyda oo saddexda tartan anu horta tartankan jeclaan lahaa in la dhiiri geliyo oo la xoojiyo tartanka gobolada wasaaradda horta maamusha sidaan aan xogta ku helay. tartanka kale ee ku xiga championka waa mid inagu cusub kaalaftirkiisa wasaaraddu qayb bay ku leedahay xiriirkuna mas'uuliyaddu lahaa. tartankaas aan jeclaan lahaa in la dhiiri geliyo oo la xoojiyo oo dhaqaalaha loo kordhiyo. aad iyo aad muwarid bal waxaan imanaa garoonkii iyo shaqadii runtii saxaafadda xagga ciyaaraha. muwarid inta badan markaan banaanka ama dibadaha ka daawanayno ama gudaha dadka jooga ciyaaraha daawanayaan ciyaarta markay soo dhamaato saxaafaddu wareysiga kooxaha ka qaadaa. wareysiga kooxaha ka qaadaa mararka qaar waxaan arkaynaa waxaad soo tabisaan wareysigii kooxda ciyaartaas guusha ka gaadhay hal dhinac kooxdii ciyaarta guuldarrada hal dhinac oo keliya. kooxdii kale garoonka ama guuldarrada ku timi ma aragna macalinkeeda la wareysanayo ciyaartooyda la wareysanayo. adduunkana waxaa la yaqaanaa marka ciyaar dhammaato iyadoo final la kala qaadayba labada kooxoodba garoonka joogaan wareysida la qaadaa waana fair play. sababta bal waxaad noo qeexdaa ay inta badan u dhacdo in kooxna hal dhinac keliya xogtoodii wareysigooda aan helno kooxna aanu weyno. horta saxaafaddu aad bay iyaguna u mahadsan yihiin way wada maqlayaan ciyaartooyguna aad bay u mahadsan yihiin tababarayaasha. fair play-ga maxamed oo aad ka dhawaajisay in labada dhinacba xog laga helo sababta looga badiyey iyo sababta ay guusha u heleen waynu wada aragnaa. laakiin inaga hal mid baa jirta bisayl ayaan jirin. bisaylka waxaan uga jeeda guuldarrada ma aqbalno dadkeena guusha way wada yeeshaan dhaliishana cid gaara la saara. iminka markay ciyaarta soo dhammaato kooxdii laga badiyey iyo kooxda badisayba waxa ku waajiba inay qabtaan wareysiga si taageerayaashiina ay u helaan dhaliisha iyo halkay ka liiteen kooxdiina ay u hesho wiiga dambe ay iska soo adkayso dhaliishii garoonka ka jirtayna miidiyihii uu helo uu xog qaado dadkii aan waxba ogeyn uu gaarsiiyo. haddaba waxaa jirta bisaylkaasi waxa weeye ma tababarayaasha ma guddoomiyeyaasha kooxaha maamulaha ma ciyaartooyga. waxa weeye ciyaartu markay dhammaato waxaa soo baxa jawi kale natiijo aan ku farxad gelin. ciyaartooygii 11kii waxaad moodaa inay isku wada daran yihiin oo wada cadhoodeen oo ay baxeen oo ayna siinin xuquuqdii fair play-ga aad ka dhawaajiso inay xogta bixiyaan sababta looga badiyey guusha guuldarrada timid iyo guusha ay gaadheenba. dhinacan kale ee badiyey ayaa iyagu waxaad moodaaba inay iyagu diyaar u yihiinba miidiyaho markaaba markaad mikrofoonka u geyso ama goobtii loogu talagalay aad soo istaajiso emotionkiisii moodkii uu ka soo helay 90 daqiiqo ayuu uga faa'iideysanaya wuuna hadlayaa. marka waxaan ku dhiiri gelinayaa anigu maxamedow sida aad ula socotaan aniguna ula socdaa weliba anigu halkan joogo loo kala daawadaha kalena wuu ula socdaa in ciyaartooyga ay ixtiraamaan taageerayaashooda aan ciyaarta joogin iyo kuwa dibadda ku maqan ee fiirsanaya ee weliba qaar 9 saacadood ka dambeeyaan ay ciyaarta u soo fadhiisanayaan inay ixtiraamaan ay wararka bixiyaan oo miidiyaha u shaqeynayana iyagoo ixtiraam badan u haya ay siiyaan wareysiga. marka weynaan la qabsanin in dhinaca kale uu bixiyo.
aad iyo aad taas aad baan runtii hoosta uga xariiqaynaa garoonka kubadda cagta waa fair play garoonka soo gelaysana cid badan doonta ilaah baa og laakiin 90 daqiiqo marka dhamaadaan ciyaartaasi ay soo gabagabowdo labada kooxoodba garoonka inay joogaan baa runtii kubadda cagtu ay faraysaa maanta haddii lagaa badiyo berri baad badinaysaa maanta marka saaxiibka garab joogtada warbixinta bixiso gacanta qaadad runtii isu hambaliyeysaan adna berri saasi la-eg baan leenahay muwarig haddaan intaa ka tago waxaa iyaduna jirta oo inta badan markaan macallimiinta kooxaha ayagoo aan xidhiidh la yeesho sheekaysanano iyadana jirta inay xoogaa ka muujiyaan cabasho in ciyaaruhu markay dhammaato ciyaartu in qofkii tusaale ahaan macallinkii ama kabtaankii ama qofkii markaa warka looga baahnaayo kooxda in laga yaabo ilaa 6 qof oo kala duwan tusaale champion kale ama register kale uu qofku maro oo hal su'aal oo isku mid ah la weydiiyo TV-ka su'aashaas inuu ka jawaabo qofkii waqti badan ka lumo uu ku daalo at the same time uu isticmaalo TV-ga ixtiraam siyo ka tagin maana dhici karin mubaarig in ciyaarta marka dhamaato TV-yadu iyagoo isku dhafan oo isku mida in meel gaar ah inta samaystaan background saxaafadda magacyadu ka muuqdo marka saxaafadii ay mikrofoonadu ka muuqda diyaariyaan halkaas waraysiga qofka lagu weydiiyo dhowrkii journalist ama saxafiye sportiga ahana iyagoo halkaa wada joogo qofka su'aasha weydiiyo halka qofkii mas'uulka ahaa macallinkii ama kabtankii hal mar inta waraysiga uu bixiyo uu hore u bixi lahaa taas suurtagal maaha miya maadaama hadda inkastoo aanad wakiil ka wada ahayn haddana maadaama hadda adigu waraysiga aan kaa qaadayo runtii fikirkaas haddii aad isweydiiseen iyo hadduu macquul noqon karo labadaba Dr. Maxamed aad baa mahadsan tahay waxaad ula jeedana waan fahmay su-aasha iyo TV-yada oo hal mar wax wada weydiiyo qofkii waxa weeye horta istadiyoonadeennu modernize ilmaha si casriga uma dhisna uma leh in interview la sii qabto ciyaarta ka hor sidan adduunyada aynu aragnay ciyaarta kadibna marka ay dhamaato waxa weeye goob baynu u baahannahay in la sameeyo ay ku yaalaan loogooyinkii kambaniyada waaweyn ee ciyaaraha dhiirigeliya iyo kuwa kale ganacsatada dalkeena ugu caansan sida ciyaartooyga caalamkaba ay waxa ka wada dambeeya dhammaan kambani uu magaciisa iyo loogadiisii kadibna halkaas lagu wada wareystaa ama TV kaliya ha ku wareysto ama dhammaan si jamc ah u wada wareystaan su-aashan kaliya ee qofka waqtiga ka qaadisana maalmahan week u dambeeyo kale laftarkeegu waxaanu sameynay casrigii baanu la jaan qaadanaa xirkii qoraalkii sare waanu bedelnay inkastoo ay sir hayd inaan bixiyaan jeclay laakiin waa wax fiican oo in la kala faa'iidaa xirkii muuqaalka kusoo galay waanu bedelnay su-aashii kaliya ahaydna waanu bedelnay oo dee laftarkeegu waxaan u baahnayn in casrigan oo kale aan la jaan qaadno telefishinada kalena waxaan hubaa in iyaguna sidaas sameeyay nala qaateen laakiin hal goob in wax lagu wada weydiiyo hal mar noomay weli suuro gelin taasoo aananu haysan wixii background hay ciyaartooyga ka dambeyn lahaa kow iyo goob ciyaartooyga u gaaro ciyaarta ka hor uu ku sii qabto shir jireed oo sii dhigi lahaynba oo hawada markaan sii dhigno ay xamaasad iyo de xiisaba sii yeelan lahayd taasina ma dhacdo ee waxaan goobahoodan ku booqanaa aad waa inuu su'aal baan jeclay waqti baan haysanaan ku weydiiyo xilli ma isleedahay wax kasta waxay leeyihiin qorshe leeyihiin wax kastana runtii isbedel baa lagu sameeyaa qalabkii waanu haysanaa casriya xarumihiina waa casri galaysan san waddanka beelud xarunta Turkiga la soo arkay dhismaha aad weyn baa haysta oo meelo badan leh xilli maynu gaadhaynaa in ciyaarta iyadoo garoon ka socota xarumaha TV-du leeyihiin studio-ga live looga soo daayo halkaasna qofka suxufiga ciyaarta runtii daadihinaya iyo qofka tacliiq ay kala duwanaadaan laba qof oo runtii ciyaarta faaleeyana ama falanqeeyana goobta studio-ga sidaan aragnay dee koobkii gobolada kale muqdisho kale astaan siday sameynayso kale maana suurtagal ahayn taa ku dheedan la sameeyo studio-ga la joogo garoonka la geyn karo oo sidaa la isugu xidhin karo aqoontaas maan loo diyaarsanayn hadda su-aashaasi waxay noqonaysaa maxamedow in la horumariyo aqoonta farsamada telefishinada iyo aqoonta in la helo in laga maarmi karo stadionka studio-gan laga dhex sameynayo kumeel gaadhka ah kadibna la sameeyo studio u diyaarsan 6 bilood ee horyaalka telefishinka dhexdiisa marka waxay noqonaysaa taas inay isku noqdaan bahda media iyo bahda xiriirka
oo si wada jira uga howlgala in halkaana laga maarmo halkana laga sameeyo studio u joogta ah 6 bilood taasoo aqoonta farsamo yaqaanada iyo aqoonta wariyaasha iyo xirfadda imika intan waa la soo kordhiyo live stream kan qof baa keenay 2018 hal qof bay fikradani ka timid kadibna waa lala qaatay wata aad arkayso faa'iidada laga helay tan waxaan rajaynayaa insha Allah in lagu darsado qorshaha in marka nasashada la galo horyaaladu fasax noqdaan aad iyo aad waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo qof kasta ciyaaryahanadu markay kubadda ciyaaryahanay yihiin kubadda waxa ka hormariyaan alaamiintada garoonka in la tababar la siiyo tababaru fikrad siiyo qorshayaal cusub garoonka kusoo bandhigaan adigu shaqadaada tacliiqnimo si aad u hormariso maxaad samaysaa horta inta badan shaqada narrationka ama commentary-ga ama tabintu waxay horta horumarka ku samaysaa waxa weeye kow muuqaalka teamka aad la shaqaynaysaa haddii ay muuqaalkii sameeyaan ay auto replay-gii sameeyaan oo ku soo celintii ay sameeyaan kamaradaha isticmaalayaan tiro 5 ka badan ay noqdaan waxa weeye waxa aad dadka u tabinaysaa waxay noqonaysaa wax fiican oo ay dadku arki karaan oo ay minute walba la socon karaan taasi qayb bay ka noqotaa anigu shakhsiyan waxaan sameeyaa ciyaartu si ay xiiso u yeelato waxaan ku sameeyaa qofka daawanaya ee garoonka fadhiya anigu ila midiyay kaas laakiin qofka ka maqan ee ciyaarta mobile ka daawanaya mobilkiisa gacanta ama television ka daawanaya kaasaan anigu ku sameeyaa inuu ciyaartan u soo jeedo oo uu joogteeyo oo uu la socdo mar walba si aan xiiso ugu yeelo markaa maadaama meeshii ka maqan yahay xog sax oo meesha ka dhacaysana oo u gudbinaa sidaasaan ku sameeyaa horumar midda labaad ereyada waan raadinaa oo waxay ku soo markay imika maxamed oo joogto difaaca in yar iga ralaho markay difaaca joogto kubaddu waxay leedahay ereyo u gaara oo ama qabow ama aan kor loo qaadayn markay dhexda joogto markay weerarka timaado waxay leedahay shaqo gaara oo narrationku waa inuu ka kululaada oo qofkii observer noqdayo toos ugu fiirsadaayo wixii ku xidhnaada markii joogto maxamedow tusaale ahaan oo kale markuu qofku xirfad uu sameeyo ciyaartooygu uu ku sameeyo ka soo horjeedana waa muhiim in narration iyo xuquuq uu leeyahay aad siiso taas adigana ku keenaysa sumcaddii isagana u keenaysa TV-gii baahintiiba u keenaysa marka wixii ba walaal isku wada xidhan oo wax laga maarmayo maaha inta badanna waxani waa hawl weyn oo adag oo maxamedow markaan ka soo baxo kale anigu waxaan dareemaa daal badan baan dareemaa waqti 30 daqiiqo wax laga yaabaa inaanan cidnaba la hadal ama 15 daqiiqo oo nasasho aan qaato ama gurigayga aan imaado ama goobihii kale tagi karayo marka wallahi hawl yar maaha way muwaadiniin waxa jeclaan ku weydiiyo saamaha tiri kubad kasta meesha ay joogto tembadeeda tempo ayaad u isticmaashaa ciyaartii imika wada ciyaarayeen daan qaldanayn ugu dambeysay tii ka horeysay wada ciyaarayeen kooxda la yiraahdo gaashaan iyo wada ciyaareen gaashaan kooxda ciyaartay وحول بلا ودعيرين عياريهم كدفاع كعيارين لايح أيا كبد كل بيرون صوت شرينا دركت ماي فيسبوك اللي صور دقي سدا تقول علينا سد وقت كينا سوق بدأ ومعاني سي كل كم صوت شري أجل تكون حسين أيا مركب مالها صوت كلا يمرك كبد برت العاب مريا عمل الشودو كلا تيمبوين كاس فنتي وانا أتكلم استعماشا موارد صح وصعب موجود marka sidaas dhacdo qofka taageeraha daawanaya ama muuqaal ahaan u daawanaya ama si toos ah u fadhiyo siidka garoonka ama fadhiga garoonka isaguna sidaas leeg buu u kacaya maxamedow markuu ama inanku uu ciyaartooyga sameeyo actionka labada adin laga saarayo ama laaga dheer meesha dheer laga soo tooganayo ama fursadan degdeg ee la dhalinayo aadiya taas keenaysa marka in صح taas keenaysa marka in la dhaliyo oo qofkii kaco oo emotionkii kaco oo taageeranimada ay sii xoogaysato marka waa in dadkii iyo ciyaartooyga adiga u dhaxeeya haddaad adigu seexato ama aad saddexdii qaybood ciyaarta aad qaybsan weydo qofka ku ag fadhiye managerka halkan kula fadhiyo studiogu isaguna halkan uu ka hagayaa oo kamarada afraad talabaad tashanaad tamiinka u sareysa waxaba markuu qaato waa inaad isagana gacantiisii aad ku shaqeysaa hadduu isagoo koornaha jooga adiguna aad gooladaha ka soo waranto
marmar ay dhacdaa way jirtaa laakiin waa inaad isagana la socotaa oo isagii ku ag fadhiyaba halkan kaa hagayay aad iyo aad muwarid waxaa jirta iminka dhalinyaro badan oo tacliiqa oo shaqada runtii dee iyaguna wada tviyada qaar marka jaamiyoonkii lasoo qaybiyo kale gobolada loo qaybiyey markaad aragtay dhalinyaradaas kuwaad is leedahay runtii horumar fiican bay ka sameeyeen oo runtii mustaqbalkana waxa weeyaan halka adigu joogto muwarig ahaan iyo meel kaa sareysa way gaari karaan waayo adduunka waxaa la qiimeeyaa ciyaartooydu marka dhalinyarada upcoming starska xidigaha yarara soo kacaya waa lasii qiimeeyaa ay fafaalaha ay yeelan karaan oo magarasa waa la saadaalin karaa bal maadaama adigu aad tacliiq tahay runtii aqoon talentii adigu leedaho de waxaan meel kasoo baran meel u tegin wadana ilahay baa hiba kuusii adiga aan odhan karaa markaad qiimeysay runtii dhalinyaro badan ay kugu xidhanta wax kaa barteen raggaad is leedahay mustaqbalka iyaguna waxa weeyaan waa iman karaan meel runtii sarreysaya ka mid ah wallahi aad bay horta dee su-aashan u fiican tahay maasha allah waxa weeye niman yaryar baa jira aniga daahan way geeryihiin laakiin way shaqayn karayaan weliba waxay u shaqayn karayaan si aniga iga wanaagsan iyo si kuwo kaloo soo bixi doonaba ka fiican waayo horta narration kuwala wuu kulul yahay markaan leeyahay wuu kulul yahay waxaan uga jeedaa waxaad haystaa waa microphone waxa weeye dee dhibaatadiisu leeyahay waxaad samaynaysaa 90 daqiiqaad hadlaysaa waxa weeye waxa yaree lagu qaataa marmar baan la helinba oo iska raagtaaba haddaad xataa ku nafisi lahayd markaad ka baxdo marka nin iyo laba iyo saddex u babac dhigi kara dee way yar tahay laakiin nimankaas soo baxay weliba telefishin bay ay ka howlgaleen nasiib uu siiyey wayna adkaysina way leeyihin maxamedow haddii bahashan loo adkaysto oo mar walba lama qayliyo oo de xoog looma hadlo oo waxay leedahay saddexdaa qodob aan soo sheegay laakiin waxaan aad anigu la yaabay oo ilaa hadda aan aad ula yaabanahay ninka la dhahaa ciise oo saaxiibna nahay wuxuu leeyahay waxa weeye ma xiiqayo way bahashan waa la xiiqaa sababta loo xiiqana waxa weeye markaad xiiqdona waxa lumaya adigu teen baad ku sheegaysaa laakiin codkii iyo tabintii iyo halkii aad focuska ku haysay intiiba way kaa lumayaan oo marmarba dhacsa aad aamustaba seconds hal daqiiqo ama 2 daqiiqo aad aamusto si aad intaas aad u soo noqoto ama maruu garsooru casaan qof siiyo la murmayo oo ciyaarta gudaheeda muran ka dhacay ma si hadli kartid markaad tilmaanto waxa dhacay waa inaad ka baxdo ciise horta aad baan ugu mahadnaqayaa cumar isagana waxaan leeyahay wuxuu noqon doonaa ninka ciise ku xiga waayo wuxuu sameeyey u dadaalay awood buu leeyimid xiiq male inta badan codkiisa bilaadanku isku wada cod maaha laakiin siiqada uu isticmaalo ayaa ah siiqa imaaraatiya ama fahad citaybi ha noqoto ninka la yidhaahdo waxa weeye codka ninkaasuu doonaa inuu lahjada u bedelo waan aadna wuu fiican yahay waqtigana wuu ku ilaaliyaa weliba isagu inta uu dheer yahay ninka kale waxa uu waqtiga ciyaarta uu ku ilaaliyaa ciise waa nin cod weyn codkar ah aan daalayn intaanaynu kasii badiyaan jecel waayo magaciisa oo kor noqda waxa weeye shaqadan iyo xirfadan baa kor noqotay maaha mid uu qof kale wax ku yeelayo waanu weliba ku hambalyeynaa labadan nin cumar iyo ciise waan salaameynaa gobolo munaasiba aad baan salaameynaa gobolo munaasiba oo jooga xilli munaasiba aad iyo aad muwarid waxaa jirta tartamada waddanka marka la qabto ay soo gabagaboobaan waxaa la bixiyaa waxa loo yaqaana awareness aba abaalmarino lagu abaalgudo ciyaaryahanadii garsoorayaashii tababarayaashii adigu tiimka kala duwanaa markaan imaado tacliiqa oo runtii door wanaagsan ka qaata adiga mubaarig ahaan oo runtii kor u qaaday ciyaaraha dalka ilaa hadda stage lagaaga yeedhay maanu aragoo leeyahay abaalmarin taa noocaasa ilaa adiga abaalmarintaada koob iyo waxaa noqon maysay ayaa mubaarig la guddoonsiiyey ama cumaraani ama ciise tooni waan arkay abaalmarino lagu guddoonsiiyey tv-ga iyo si barefida lagu guddoonsiiyey laakiin waxaa sheegay sida guud ee qusaysa tartanada qusaysa miyay jiraan abaalmarino anagu bulshadeedaan nahay saxaafadda kala socotay muuqbaahiyaasha kala socotay caalamka maanu arag miyay jiraan adiga si gaara oo lagu abaalmariyey oo aad ku mutaysatay shaqada culus ee culayskale aada hayso maxamed horta aad baad u mahadsan tahay ina cid dhaliilana waa iska diidaya horta ma jirto meel
shacbiga sportska aan kaa dhex galo walaalo dhaliil ma aha waa inaan ogaanaa qofku creditkiisa inuu helaa fiican aad baad mahadsan tahay horta ma arag meel dee shacbiga sportsku ama institution xidhiidhka Somaliland ama wasaaradda ama kambanigan ka tirsaneen u shaqeeyo weli ma arag dameen laygu caleema saaray waana wax ilaahay bixiyo oo horta xagga Allah Maxamed ka timaada oo waxa weeye waa raxmaanka bixiya laakiin anigu waxba ciilna uguma qabo carana uguma qabo alxamdulillah 2018 Boorama ka soo shaqeeyay anigu cusub 2019 laascaanood baan ka shaqeeyay oo weligeed life laga gelin oo markaa ka galay alxamdulillah iyadana ma arag 2020 February Burcan ka shaqeeyay Alamsi Stadium meel aan aad u jeclay way magaalada Burco dad qalbi furan oo axbaab fiican aan ku leeyahay iyadana ma arag Hargeysa Stadium ma ka shaqeeyay Sonya Cup iyo ciyaarihii gobolada haddana Cabdulla Stadium ma ka soo shaqeeyay garoomada Somaliland Senegal ma ka shaqeyn insha Allah haddii aan noolahayna maalmaha kamida waan tagi doonaa maxamed ma arag walaal cid sida adiga ka dhawaajisay ii samaysay حتى كمبنيات كشقيو وقت كان هو كيبل كسو شقيني iyo waqtigan in control cable ka shaqeynayo thank you حتى ما arag laakiin ciyaartooygan uga mahadnaqaya qofkan wax uga baahdo qofkan la hadlo qofka ciyaartooygu wadada qalbi furan ila soo xiriira shaqadayda igu amaanay idinkoo kale waan idinku amaanaya shaqadayda igu amaanteen taa aad sheegaysay abaalmarintana anigu waxaan aaminay in xagga Ilaahay ay ka timaado oo samada laga soo ansixiyo marka waxaan siri cidna ha eersan aadna wad ugu mahadsantahay mar dad barnaamijka igu weydiisay cidii ku shaqada lahayd ma garanayo oo dhaliili maayo oo malaa deetaalkoodan ba awoodin laakiin shaqadaas inaan qabtay hadii ogtihiin ama ciyaartooygu yogiin ama shacabku yogihay alxamdulillah aad baad maasada walmaarig ana fursadan ugu qodaydu jecel inaan farin runtii aan uga faa'iideysto hadalkaaga waxaan jeclaan lahaa guud ahaan bulshada ciyaaraha ku xidhan ee guud ahaan Somaliland oo dhan haday yihiin wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xidhiidhka bulshada kala duwan institutionska dalka ee kala duwan waxaan jeclaan lahaa in runtii qofka bilaadanka shaqo wanaagsan oo runtii dalka u qabta in runtii ruweerkiisa uu helo at the same time marka tartan soo dhamaadaan in aad garateen in aad abaal marisaan in garoonka ciyaarayay iyo macallinkii la joogay iyo tiimkii kala duwanaadan in la garan waayo qofkii isaguna ciyaar walba taagnaa ciyaartooygu isbedeshaa maalin bay ciyaaraanba qofkii maalin walba taagnaa 90 daqiiqo ee tacliiq ahaa ee xiiqayay 90 daqiiqo halaayay in runtii abaalmarin uu inaga heli waayo runtii aad baan taa uga xumahay sidoo kale guud ahaan dhalinyarada kala duwan ee dalka iyagana aan ku amaanaya inaad ka heshay creditkaas iyo runtii qiimahaaga ciyaartooyda hore hadaan nahay qurbaha joogayna runtii ku og runtii aad kaaga mahadnaqayna runtii aad bal mahadnaqaya muwaar guntii gabagabadii barnaamijka ayaanu nimi intaana runtii barnaamijka adiga kugu soo celin inaad bal wax ku dari karto waxaan jecelahay bal ugu horeyn intaan su'aasha ugu dambaysa ku weydiin miyay jirtaa waxaad jeclaan lahayd oo aad isleedahay maxamed kuma weydiinin oo aad barnaamijka ku dar lahayd inta ha maxamed wax jeclaan lahaa inta badan waxa laga soo cawdaa garsoorka garsoorkana imika labadii sano u dambeeyay tababar fiican baa la siiyay qalab fiican baa la siiyay way soo bislaadeen dabeecadii ciyaarta ciyaar walba dabeecad bay leedahay laba kooxood oo derbiyo adag garsoore aan fahamsanayn ama labadan kooxood taariikh ka haysan ama aan daawan marka loo dhiibo problem ba ka iman jiray hadda waxaad moodaa garsoorka inay soo fiicnaanayaan tababarkii la siiyay ay ku dabaqeen shaqadii garsoorkuna ay soo noolaatay horay bay kaarka ka bixiyaan maxamedow imika kaarka qaladku siduu u dhacay shaqadii jawaabtii waxaad moodaa in garsoorayaashii imika ay soo bislaanayaan oo aad moodo in shaqadii ay la soo qabsadeen oo ciyaarihii siday u kala ay qawisanayeen u kala adkaayeen loogu soo kala qorayo markaanu ammaan baan u hayaa garsoorayaasha muwaarib waxaan jeclaan inaan ku weydiiyo maadaama ilaa hadda sidaad sheegtay aan la helin qiimihii iyo amaridda xaqa u lahayd
haddii telefoonkaaga soo dhaco maanta luuqada soomaaliga meel kastoo lagaga hadlo afka soomaaliga dadka ciyaaraha xiiseeya maanta way ku yaqaan muwaarid bukaasi haddii maanta meel ka mida meelaha soomaalidu degto meel la xusamayne lagaaga yeedho oo inaad kala shaqayso lagugu yeedho oo somaliland kasoo bedelato ma soo dhaweynaysaa mise waxaad leedahay somaliland ayaa runtii aan ugu samraya duruuf kastoon ku hayo wallaahi maxamedow horta weli cidna igamay yeedhin laakiin haddii baa tiri halkan aan ka shaqeeyo True Cable TV aan si toosa wariyanimo ciyaaraha ugala shaqeeyo commentary-ga ama tabinta ciyaaruhuna True Cable qayb bay ka tahay institution-kan uu shaqeeyo iyo Somaliland taan ka dhax shaqeeyaba horta wax debelaya oo ku qabaa ma jirto alxamdulillah laakiin haddii su'aashaasi ay timaado oo waqti fiican aan hayo oo chance aan helo oo family-gayga ka tagaya dee ubadkayga iyo nidaamka noloshayda kale waan tagi lahaa waana soo shaqeyn lahaa waayo kuwaasiba waxay u baahan yihiin in loo shaqeeyo kubadda cagtuna male sports-kuna male qabiil male doorasho gaara male waxyaabo kale oo ka joojinaya marka sports-ka waan kaga soo shaqeyn lahaa haddii maantada iga soo dhaco waa xirfad waa lagaga soo shaqeyn karaa adeer waan su-aasha gudusa barnaamijkan kusoo afmeeraynay ayaan ku weydiinayaa waxa weeye tala bixintaada ama fikirkaaga waxaad jeclaan lahayd inaad ku biiriso saddexda qole kale ah wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha xidhiidhka iyo garsoorka oo aan israacinayno iyo dhalinyarada qudheeda ay la socdaan garsoorka macallimiintoodii iyo runtii tababarayaashoodii maxaad far lahayd saddexdaas kala duwan ee saddexduba ay ka shaqeynayaan runtii ciyaaraha horta wasaaradda ciyaaraha Somaliland oo bahdeedii waana bahdii qarankan Somaliland xiriirkana qayb weyn bay u tahay sida xiriirku sheego wasaaradda ciyaaraha waxaan kula talin lahaa kubadda cagta Somaliland way horumartay television bay heshay ciyaartoy xirfad leh bay heshay goobo ciyaartoyga mushahar siiya heshay wasaaradda waxaan kula talin lahaa xiriirada kale inay soo nooleeyaan oo waxay leedahay xiriirka ciyaaraha xiriirka legdanka xiriirka orodada xiriirka basketballka ee NBA-ga dee waxa weeye kuwaana ay wasaaraddu soo nooleyso iminkana wasaaraddii waxa DG ka nin ciyaarihii fahmaya soo bilaabay waqtigiisa Cabdirashiid Caydiid Yaasiin aad baan ugu mahadnaqayaa waa nin dadka dhageysta intaana waan u hayaa anigu Cabdirashiid Caydiid marka wada doodaysan waa shakhsi ku dhageysanaya isagoo waliba mas'uul qaran oo title-ka inta leeg haya aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kula talin lahaa in la kordhiyo xiriirada kale awoodahooga oo life-afkooda la siiyo si xirfadaasina ay u noolaato xirfad sii jirta ay u noqoto iminka kubadda cagta way hirgashay Somaliland wada arkaysa caalamka meel walba way gaadhay laakiin xiriiradii kale NBA-ga basketkii way fadhiyaan orodadii in iyagana la dhiirigeliyo oo sida sports-ka loo dhiirigelinayo garoomada loogu helo iyagana garoomadoodii loogu helo xiriirka team fiican baa haysta aad baan uga mahadnaqayaa Fuad iyo Khadar iyo Cabdirasaaq Birlo saddexdana xiriirka u sareeya waa team fiican oo shaqeyn karaya caqabaday la kulmeen way xaliyeen shaqadiina way qabteen aad baan ugu mahadnaqayaa si waxaan iyagana ka rajaynayaa in ay tartanada xoojiyaan oo tartanadu ayna noqon kuwa sanadkan iyo sanadkii hore noqda oo tartanada la sii xoojiyo oo sponsor caalami ah loo helo tartanadana waxa ka dhiman kooxda qaada wax abaalmarin koobkaas baa la siiyaa iyaga laftirkooda bukaanse kale iska oo wax abaalmarin in lacag la siiyo muhiima sida adiyada marka maxamedow Fuadna aad baan ugu mahadnaqayaa laascanood baan Fuad ugu tagay hal daqiiqo igu dar Fuad laascanood baan ugu tagay 2019 December shakhsi muxtarima oo ciyaartoygii liiskareeyay oo ID card u sameeyay oo kooxihii shahaadooyin u sameeyay baan gobolka soo lagu tagay isagoo markaa isiduwa ahaa oo nin furfuran dadka la sheekaysanaya shaqada sideeda uga soo baxaya dee qurbahana ka yimid UK ka yimid London si fiican u soo diyaar garoobay buu ahaa at that time ninkaas wuxuu ii sheegay habeenada kamida ma iloobay laamaka in uu Hargeysa iman doono maalin Somaliland caasimadeeda uu noqon doono madaxweynaha xiriirka kubadda cagta sidaas uu jecel yahay lagu dhaw waliba iminkan ku leeyahay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta sharcigeega ku qornaa uuna ka dhabeeyay riyadiisii dadkiina way u aqbaleen samadana way uga qornaydo wax ilaahay u qadaray bahayd
fuaad markaa isaga aad baan ugu mahadnaqay khadar jilaal nin la iloobi kara maaha ninkaas aniga iga mudan haddii cid aan iska horreysiin lahaa maanta waxa weeye in badan buu garsoore soo ahaa gudoomiye garsoor buu kusoo dalacay gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Somaliland buu noqday waa nin shaqadii garanaya muddo badan kusoo dhex jiray cabdirasaaqna ciyaartooy buu kooxdii maaliyaddu ka tirsanaa markii dambena wuxuu kusoo dalacay shaqada xogeeyaha xiriirka waana nin aad u afkaaban shaqadana si fiican u wada iyagana waxaan kula talin lahaa inay ku dadaalaan in kooxda soo rafaaday ee 6 bilood ciyaartay horyaalkii capital league caasimadda ama laascaanood 3 bilood ka ciyaartay ama awdal ama burco ama berbera ama cirigaabo in la siiyo koobkan wax u raaca ama abaalmarin ama dalxiis oo iyagu ay diyaariyaan ay xaq loogu leeyahay haddii ay awoodaan weeye laakiin ciyaartooyga iyo macallimiinta horta aad baan ugu mahadnaqayaa kooxaha qaar disciplinkooda uu dhisan yahay koox ahaan waa structure-kii oo waa koox laakiin waxay kala leedahay gudoomiye tababare ku-xigeen kabtan iyo tiimkii kale way dhisan yihiin si fiican gruubay leeyihiin ay ka wada hadlaan maalmaha training ku qoran yahay iyaga waxaan ka codsan lahaa in garamaantooda ay daabacaan kadibna suuqyada Hargeysa ama Burco ama Laascaanood ama Sanaag ama Saaxil Berbera ama Awdal lagu iibiyo oo koox walo gobolka ka dhisan ama caasimadda ka dhisan 24 nin ay daabacdo ay geyso kambaniyada waaweyn oo lagu dhex iibiyo garankiina qiimo raali geliya taageerihii laga siiyo way kooxii ma develop gareysnay way kooxu waa inay soo saaraan loogadooda iyo calaamadooda inay daabacaan waa inay suuqyada dhigaan dabeedna taageero u gato maxamed sida wadanka joogto imika Switzerland oo kala wada aragtay Zurich iyo Basel iyo siday u sameeyaan inay kooxu ay awoodda bal diyaariyaan ala aqal 20 garan ay soo saaraan oo 6 bilood suuqyada lagu kala iibsado markaaba tijaabo aad bad maarumaadsan tahay waan kala mahad celinay waqtiga qaaliga ahaa مسؤولين تاع الحستي عبد الشيخ عديد ياسين رسمها الجودس هذا اللي عيار دون سلامنا سلو كله فؤاد أحمد علي أو حوي من الحملة حرير كوبدة عالتها دون سلامنا بر السوق على السلام خضر شيدا أيام ماشي خم غير نسقنا دون سلامنا مدالها عيار كوبدة عالتها سنة دون سلامنا ده وضيال إذا صفرت أحمرت أيها هيد بكاسيها ليستيسي انت هسه كسو gabagabana barnaamijkii koobnaa aan kula yeeshay mubarak bukaasi walaal qaali runtii ciyaaraha ku suntan intaas kusoo gabagabeynaya tan iyo barnaamijkan inta isugu iman doono waa aniga maxamed cabdilaahi cawada maxamed dhaaga oo kamarada ah iyo mubarak oo isku duwan waxaan kaga tagnaa sidaas iyo nabaadiino